بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أيها الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu soo qaadanay inuu ugu dambeysay cashir ka horreeyay mawduucii asixa ayaynu soo qaadanay, ama alcinaayatu ama almuxaafadatu bisixa, in la ilaaliyo caafimaadkii. waxaynu ka soo qaadanay noqdooyin badan. waxaa ka mid ahayd kow, qofku inuu seexdo xilli hore, qofku inuu nidaamiyo xilli awqaada wax cunaayo, qofku inuu magaranaysaa ay cuno cuntooyin nafaqa leh amba faa'iido leh, inuu jirka wale inuu cuno. waxyaabahaasaynu soo qaadanay. maanta waxaynu qaadanaynaa qaybtii kale ee inoo dhimanayd casharkan. maanta waxaynu ka faa'iideynaa si hordhaca oo waxyaabahaynu ka faa'iideyna ka mid ah in muhiim ay tahay in jirka iyo maryahaba la nadiifiyo, inay muhiim tahay qofku inuu ku dadaalo maryo gaara oo wixiisa u gaar u noqdo, iyo inay muhiim tahay inuu qofku ilkihiisa ammaana ah ama ilkihiisa nadaafadooda inuu aad u ilaaliyo. qodobkii anagu sii gelayna ayaynu dhammaystiraynaa casharka intii nooga dhimanayd. saddexdaa noqdo ayaynu kasoo hadalay. noqdada afraad waxa weeyaan, ama qodobka afraad, an yuxaafid qofku waa inuu ilaaliyo calaa nadaafati jismihi, jirkiisa nadaafadiisa, iyo wa malaabisihi maryihiisa. waa qodobka afraad. qodobka shanaad waxa weeyaan an yastaxima inuu ku maydho qofku bilmaai saakhin, biyo diiran inuu ku maydho, iyo wasaabuuni saabuun fil yawmi maalintii akthar in ka fara badan min maratin mar, cala alaqal ugu yaraan, fi shitaa'i xilliga jiilaalka, wa maratayn oo akthar ama hal mar laba mar iyo in ka badanba fi ayaami sayfi xilliga xagaaga. xilliga qabowgu jirona waa inuu qofku mar iyo ka badanba inuu maydho. xilliga kuleylku jirana waa inuu maydho qofku 2 jeer iyo wixii ka badan. qodobka lixaad ugu dambeeya lixaad aan dhehe waxa weeyaan an yastacmila, waa inuu qofku isticmaalo malaabisahu alkhaasa, maryihiisa gaarka waa inuu isticmaalo, wala yushaarikuhu axadun fiiha, cidina aanay la wadaagin, cidna aanay magaranaysaayay la isticmaalin. mushaarakada waxa weeyaan isticmaalkii, inaan cidna maryihiisa la isticmaalin. falmalaabisu maryaha iyo walmanshafa iyo tuwaalka iyo siwaaka cadayga ashyaaun waa asheeyaal ama waxyaabo laa taslixu aanan u wanaagsanayn ligayri saaxibiha, qofka aan lahayn, ligayri saaxibiha almaalik, qofkii maaliga ahaa mooyaane cid kale lahaa mooyaane cid kale aan u wanaagsanayn, khaasatan gaar ahaan. gayri saaxibiha maxay tahay? waa qofkii iska lahaa aan ahayn, gayr aan ahayn wey. saaxibiha almaalik markaa muxuu noqonayaa? qofkii iska lahaa, khaasatan gaar ahaan. qodobka 7 waxa weeyaan an yuxaafida qofku inuu ilaaliyo calaa nadaafati asnaanihi, nadaafada ilkihiisa, biistikhdaam isagoo isticmaalaya asiwaak, cadayga isticmaalaya, kulamaa dacat ilxaajatu lidalik, mar kasta oo loo baahdo ama baahi keento. qofku waxa laga maarmaan ugu yaraan maalintii 3 jeer inuu cadaydo ayaa aad u muhiima, cilman isagoo og biana maa yadkhulu waxa galaya bayna asnaani ilkaha dhexdooda idaa lam yunadaf, haddaan la nadiifin, yaduru inay dhibayso bisixati caafimaadka, oo yufsidu ay fasaadinayso amba ay xumaynayso alasnaana, ilkaha ay xumaynayso. qodobka ugu dambeeya 8 waxa weeyaan allaa yucarida jismahu, jirkiisa waa inaanu qofkii u bandhigin litaqalubaati aljaw, isbedelka ku dhacaya jawiga oo fil xarri kulayl ah iyo walbardi qabow ah. fa ina dalika arrinkaas mima yusabibu waa waxa ku sababaya ama ku geynaya likathiirin in fara badan min amraadi ka mid ah xanuunada, mima